kulanti wanaagsan daawadayaal waa qaybtii labaad ee xarunta freemasonka aan tiga dhowaan qaybtii hore waxaad ku daawateen dadkiinii arkay way la socdaan haatan waxaan idin geyn doonaa haweenaydii isku dayday inay anigii dacwo isiiso si aan ugu soo biiro shaka ayaa la dhex maraysa waana haweenaydii ii sheegtay kitaabka qur-aanka inuu yaalo dad muslimiinana oo dunida caanka ahna ay xubno ka yihiin ururkan freemasonka la yidhaahdo haddaba muuqaal ka duwan kii hore ayaan tusinaa haweenaydaas oo ogolaatay inaan kaamarad ka duubno hadalkiina dhex maray ayaan idiin soo gudbin doonaa qaybta dambena waxaad ku daawan doontaan meesha halista ee shardiga ay ku galaan ama nadarka waxa la yidhaahdo dhulka inta lagaa qaado kor lagugu soo xirayo dabadeedna noloshaada aad leedahay hadda ayaan isdhiibay xubin ayaan idinka mid idinka ahay halkaasna qofku uu wacad ku marayo in uu daacad u noqon doono freemasonka iyo fikirkooda iyo caqiidadooda iyo wax marka ay rumaysan yihiin alaab aan caadi ahayn ayaan gacanta la geli doonaa dhididka ayaa iga di'i doona wadnuuna xoog buu ii garaacaya waxaan isleeyahay ama albaabka la soo galaa ama kor qofku dhegaysanayo kaga qayliya marka haatan qaybta koowaad aan ku bilaabaynaa waxa ay tahay hoolka weyn oo aanan horey idiin tusinin iyo wixiina kala qabsaday hawsho waan khiyaaray wagaag halkan haatan aad arkaysaan waa hoolkii weynaa weeye waana meesha fashion showga london lagu qabto mararka qaarkood waana xarun aad iyo aad u weyn oo si qayro caadi ah loo sharaxay meeshaad eegtidba waxaad ku arki doontaa simbolkoodii maftaxan ayay isiiyeen oo albaab walba iga furaya soomaalidu markay yurub usoo qaxaysay iyo maraykanka haddii albaabadu ay kaa furmaan in lagu duceeyaa la moodi jiray tana duca ka duwan waa kaama jeedaa albaabka markaad soo geshid ishaasaa ku daawanaysa gaar ahaan tan wada huruudda haatan aan kaamarada kusoo dhoweynay waa tan ugu khatarsan ee markaa la caabudo the one eye god holka ayaan soo gelaynaa ju iyo ja ma lahan keligay ayaa ku jira inkastoo dibdal ay ka imaan doonaan markaad soo geshid waxaad dareemaysaa markiiba cidlo iyo baqdin yar ah oo aan wax weyn ahayn meel zam ah in lagu daawanayo ma ogid cidda ku jirta ma ogid waxaad kala kulmi doontid ma ogid the unknown waxa la yidhaahdo so kaamarada ayaan meel walba ku qabtay xarfahan kuraasta ayay astaan u yihiin oo kursi walba number buu leeyahay ama saf walba kursiguu leeyahay markaad tigid goosatid haddii lagu yidhaahdo da fariiso inaad jay fariisato lagama baahna so nadaan baa ka jira waa kaas awana icoodki ishaa u jeedaan soo maxan waa taa ishii iyo calaamadii iswata oo la yidhaahdo labadaas calaamadood ayay leeyihiin marka hoolkan oo dhan waxa ugu muhiimsan waxay tahay ishaas baa meel walba ku taalla xataa ruufka ama siilinka kore way ku taallaa laakiin haatan waxaan tegi doonaa mimbarka ayaan fuulaya shandadii ayaan dhulka dhigtay aniga shandada ayaan ma kala hadno mashinkan programka ayaa ku qoran meelaha la tegayo iyo waxa ay yihiin samecadda dhegaystana waa leedahay oo markaas wixii baad af ingiriis ahaan u maqlaysaa waadna socotaa arag iyo maqal isla socdo weeye oo waxaa la yidhaahdaa self guided tour oo kale weeye keligaa ayaa ismaamulaya marka anigu idinka ayaan halkan u galay dartiina usoo shaqeeyo maana doonayn qof inuu ii khudbeeyo idabagala caawo dhan oo wixii aan duubi waayo waayahay haatan mimbarkii ayaan u socdaa halkaan markaan marayay xoogaa yara nerfis baan ahaa kabta ayaa ii siiban gaadhay laakiin ilaahay fadligiis halkaan ayaan ka dhex baxaynaa calaamadoodii baa naga horreysa oo wejigeenna ku beegan waata calaamada triangle-ka halkaan waa mimbarka meesha u sarraysay weeye maradan dabadee mimbarkan dabadiisa nin baa ku jira anigu aanan arkaynin markii hore oo wiil yar ah oo farsamo yaqaan ah haatana laba nin ayaa gadaal soo galay labadaa nin cabbaar ayay joogeen ilama hadlinin laakiin indheheenna waa isku dhaceen inay ayaguna meesha u yimaadeen booqasho iyo inay aniga iska kay daba socdeen ma garanayn barnaamijkan intii aan markaan sii daynay qaybtii koowaad dadka soomaalida ah ayaa ila soo xiriiray caalamka jooga qoraallo taxi messageyo fartimo social media ay leeyihiin balaayo ayaad faraha la gashay waa lagu imaanayaa waa lagu dilayaa waa lagu dhaqan rogayaa waa lagu kan adar ninkaan waa oday weyn ilaahay rumaysan naftaan yartaan ku kalsoonahay ay baqanin insha allahu tacaala waana ku mahadsantihiin kansaankiina haatan
kor ayaan kaamarada ku qaban doonaa haddii la yidhaahdo waxaadna arki doontaan meel walba inay astaantooda ay ku taallo waa kaasaa calaamadaas dhexda ku taalla ee calaamadahooda mid ka mida weeye dhinac walbana calaamadda $1 ku sawiran soomaalida taqaano masiix dajaal ama one eye god ilaha kan isha qura leh weyaan halkan haatan waan kasoo baxaynaa waxaan soo aadaynaa qeybaha kale marka waxaan jeclaynaa kaamarada waqtiga idin beeqaamiyo aan idin geeyo meelaha xaqiiqatan muhiimka oo ay ka mid yihiin meesha asnaamta yararka ay taallo iyo weliba dubaha aan waxay noo horumariyo videoga iyo dulqaato waa ku mahadsantihiin daawashadiina here we go inankan yar baa ii imaanaya waa kaan idin sheegayey wuxuuna ii sheegayaa albaabka laga baxo because labadii albaabkii aan kasoo galay iyo mid kaleo exit ay ku qornayd labadiiba waa la xiray aniga dabaday marka banik yar baa igu dhacay waxaan isiri war ninkii odayga ahaa reemiyiga ahaa albaabadii miyaa loo xirtay meeshana lama marayin laakiin xaqiiqatan anigaa lumay cidna albaabka igama xiran naftan yar baa hadda i tusaysa albaabka laga baxo dabadeedna waan daba socdaa ninka albaabkaas u tusayaa laakiin meeshaan bixi lahaa dabadda aadi lahaa wax kale ayaa ii muuqday waa mahadsantaan ku iri dabeedna waxaan rabaa halkaan idin tuso hagaag waa kuwa labadii nin war kale baan kulannay haddana oo markaan dariiq luuq kasoo baxaba luuqa kale oo ka duwan ayay kasoo baxayaan so waxaan garan waayey what the hell are they following me I find out later on inay ayaguna danahooda u socdeen aniga aysan daniga lahayn iyo inay kormeer ku jireen I don't have a clue laakiin waanu kala meernay haatan sawirkii aad muuqaalkii hore ku aragteen waa kaasa waa kulankoodii weynaa xafladdii ugu weynaad abid ay qabsadaan weeye haatan ayaa halkan waxaa ka bilaabanaysa goobtii markaas nadarka ay ku dhiganayeen marka islaanta ay idin dambaranaya tana idin soo hormarinaya because tan aaday xasaasi u tahay islaanta sheekayaro macaan baana dhex maraysa haatan meesha nadarka lagu dhaga ayaan tegayna codkan idin furaya markaas waxaan lahaa saa u maqashaa codkayga haddii waluuqku boodaya amaad baqaysa waa keligaa maaha هي وكذا قطع صوص meesha ay idin sheegay inaan imaado lama ogolayn waa second floorkii laakiin waa kasoo dhacay maadaama nimankii aan kala goosanay si lama filaan albaabkaa leeya war soo dhawaada saa u yaabantiin baan u yaabanahay أعوذ بالله هيا شو هو halka xagee laga daara meesha waa mugdi khiyaaraya oo jeedaan halkaan ay fadhiistaan waaya waqtiga idin baa qaabana qolkan waa qolalka ka meesha waxa weeye nadarka ay ku samaystaan amase shardiga ay ku galaan waxaa taala 4 mimbar buu qolkaanu leeyahay kan waa mid ka mid ah laakiin kan kasoo horjeeda waa kan ugu khatarsan oo alaabta la isku dhaariya ay taalo ad arki doontaan mar dhow qofka markaa cagaha isagoo cagaha kor loogu qaadayo hawada dusha sare lagu xirayo markaas weeye qofku marka uu dhaaranayo uu leeyahay haatan laga bilaabo waxaan ka mid ahay freemason saas oo kale numbarkii kale waa kaasa labaad kan waa kii saddexaad weeye
now mimbarka afraad oo haatan aan tegayo il gaara ku hay alaabta taalla calaamadii saas ahayd ayaa taalla ushaan aan kor u qaaday meesheeda u koraysa waxaa ku sawiran ishii baa ku sawiran qofku halkaasuu saaranayaa anagoo aan kasoo joogno dhagaxaanu kaan moodaysaan ma aha laakiin waa dhagax soo socda laakiin kana konu la egyahay daawo wax dhaca now mimbarka u dambeeya ayaan tegayaa wadina islaantii baan u gudbaynaa haddii aad brit somali t v hore aadan ugu xirnayn soo dhowaada waxaan jecelnaa ku xiritaan waa ka mimbarka u dan leenahay dhagaxan iyo calaamadan triangle-ka fiiri halkan waxaan jecelnaa codka idiin furo because waxaan rabaa inaad dareentaan xaaladaydu siday ahayd markaas daawasho wacan allow to sit down so waxaan maxay waryaare waxaan ka baqayaa intaan wax taabto inay wax qayliyaan waxaan rabaa wax walba inaad ogaataan kana xarig baa ku xiran ma wareejinaa waa kaas haye now your life is hanging on the balance dhulka ayaad joogtay waa lagaa qaadayaa freemason baad ku beeraysaa waa lagu dalacayaa haatan meesha u sarraysa marka lagu geeyo waa markaad isdhiibtay aad nadarka gelaysid weeye dhididka iga baxay waa ujeedaan waxaa igu jira xoogaa yara oo nervis ah meeshaan ac ba leedahay waa qabowdahay laakiin odaygu wuu iska da'ayaa melaha waxaan isleeyahay daruurtii qurunka ahayd ee ku da'day cigaal shiidaan miyaa igu da'day garan maayo laakiin dhididka ayay daadanay waayahay dalac halkaan markay maraysay gadaal baan fiirshay waa baqanay markii halkaas gaarto maxaa dhacaya amay soo dhacdaa ku soco waxaan hoos ugu hadlayaa keligii baan ahay qolkuna wuu maran yahay codkaaga markiiba xoog buu u soconayaa echo baa lahaa wuu kugu soo noqonayaa marka I was terrified geesahana waan eegayay haatan qofkii waa kaasaa la dhaaranayay horti qofkan kale meesha qofku fadhiya maahana hortiisu taagan yahay inta kale geesaha fadhidana markhaati weeye xertii oo dhan baa fadhida waa halkaasaa la isugu imaanaya now bahalkan markaan dalacay waa dejin kari waaye ma deganayo qof waa isdhiibtay kuwa receptionka u sheegaya xalay baashii waa dalacay mana aqaan waxay tahay markaan dalacay waa dejin kari waaye because hoos uma degayso markaad dhinaca kale anticlockwise wadid dhinacana u wadid markii hore dhinacan markaa usoo wadid ma deganayso baashi so ayadoo saasa ayaan kasoo tegey qolkan anigoo yaaban oo leh war xaaladdu waa sidee now waxaan rabaa inaan qolkan idinka wado oo aan idin geeyo aniga iyo haweenaydii wixina dhex maray waa idinkaga mahadcelinayaa daawashadiina barnaamijyadan waxaadna u daawanaysaan because inquisitive baa tihiin inaad ogaataan baa rabtaan waxaana waxay yihiin waana waxa aniga meeshay keeyey dhulka fiira calaamadoodii baa ku taalla now koridhadan dheer ayaan cabaar lugaynayaa baan soo dhaweynayaa saaxiib ra'yigiina iyo fikirkiina ballala wadaaga waxaanu maxay yihiin maxsee u aragtaan dadkan waayahay qaybta labaad ayaan u gudbaynaa haddii ilaahay yidhaahdo oo ku saabsan aniga iyo haweeneyda waxna dhex maray laakiin ii dulqaata 30 second oo keliya waqtigiina qaaliga ay ka qaato aan jeclahay inaan idiin soo daaya muuqaal aad u kooban aan jeclahay inaad ka heli doontaan haddii ilaahay yidhaahdo Are you suffering from hair thinning or hair loss? Luxuriance hair growth products use the highest quality, natural ingredients and proven formulas for hair regrowth. Don't believe us? Then look at these results. Been using the hair serum and shampoo for about 3 months and my hair's got a lot thicker and really recommend it. Get 10% off your first purchase at luxuriance168.co.uk using code BSTV. وحاجات كمبانيgan macluumaadkooda wax walba natural ay iibaan daawadooda waa natural waa shampoo iyo serum iswato weeye ama saliid waxa Soomaalidu tiraahdo timaha ku soo celinaya kuwa ka daadanayna joojinaya hadday khafiifeena strong ka dhigay sidoo ku soo celinay intaas enough ha haato let's go to Islaantan iyo aniga waxaan kala qabto now waxaan rabaa inaan ogaataan meeshaan waa qayb kale weeye wax walba quraaraday ku jiraan note ba ku qoran noodkaas waxa kamid ah lama taaban karo meesha waxaan laga keenay waxa ay yihiin laakiin wax walba in yara ayaa ku dhex jirta
bakasa bahalkan waxaan quraaradan China ma I don't know waxa ku dhex jira ishooda ku sawiran kaas oo calaamadeedii sheekada waxaan rabaa inaan dib waxay ku celiyay islaantan markaan soo galiyay bay igu tiri haddaad su'aal qabtay imo أنا شغلي waxay tahay dadku su'aalo weydiiyo marka fursad noocaas weliga lama cafiyo fursad dahab ay siisay ay leedahay haddaad su'aal qabtid weydiiyo and boy do I have su'aalo so kulligood in xalaa su'aalaha inaan weydiiyo ayaan doonayaa waatan sheekadii haatan dib aan noqonayaa ayadii waan ku socdaa hawsha waxyaalaha antiga la yiraahdo I don't know antiga Soomaaliya waxyaalaha gaboobay ee taariikhiga ah qaybta buugaagta aan eegno research resource halkaan fariisanaysa computer kan ayaa garaacaysa waxaynu xaraana computerka dib idin kugu celiyo computerka haddaa fiirsaan si fiican u fiirsaan ishii ayaa ku taala laftigiisa so meel walba ishaas ayaa taala lama zamin oo soo socda sug waxyar here we go and that is the issue I don't know in aragtaan crosska ama calaamadda dhinaceeda kale isha ayaa u dhaxaysa so computerku wuu ku daawanayaa kamarooyinku waa ku daawanayaan ceilingku wuu ku daawanayaa ama saqafka kore guriga roofka guriga geesuhu way ku daawanayaan wax walba ku yaala islaantan su'aashaan weydiiye dhegeyso su'aalahaygu wuxuu dhacayaan si simple ah laakiin xaqiiqatan ma aha su'aalo simple ah laakiin luqad simple waxaan ugula hadlayaa waxaan rabaa inaysan iga didinin aan sheekaysano si fiican loola hadlay waa human psychology waa cajaa'ib weeye qofka bini'aadanka haddaa si fiican loola hadashid waxaad ka rajaynaysaa inuu si fiican kuula hadlo haddaan idin xasuusiyo laba waxyaalood oo muhiim ah muuse ayaa fircoon loo diray waxaa lagu yidhi faquulaa lahu qawlan layinan hadal wanaagsan oo ixtiraam lakula hadla and that is the nature of the human markaa si fiican qofka ula hadashid jawaab fiican baad ka rajaynaysaa qof naastiya waa jira sidoo kale waxaa la yidhi idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa Allah is master of psychology so I remember this ilaahay fadligiis naa waxaan u tegey islaantaa yartaa anay ayada yeeshaha iyo sheekaana dhex maraysa daawasho wacan ku qoraysa wuxuuna kuu sheegayaa waxa aad ku qortay jawaabtooda laakiin jawaabtii meesha geliya waaye maskaxdaada lagu tartamayaa naagtan waxaan weydiinayaa buugaagtan waa meeshan taala quraan ma yaalaama iska dhexyaa bal waxay dhahdaan aragno now xilligan I was not expecting inay igu tiraahdo quraan baa halkan yaala because waa meel aadan ka filanayn quraan inuu yaalo jawaabteeda dhegeyso su'aalaan weydiinayaa so let's see waxay tiraahdo hello I'm back with two simple questions, if you don't mind. You don't mind me filming, do you? No. What is your name, if you could introduce yourself? You see, halkaas markay marayso laba su'aalood baan kuula soo noqday hadday bay igu tiri haddaa su'aal qabtid ii soo noqo so now waa soo noqday laba su'aalood oo simple aan wataa laakiin in fact su'aashaas mid kale aan ka hormariyey oo ah raalli ma ka tahay inaan filimkan kaa duubo haa bay tiri now waxaan haystaa permission bay siistay inaan wax ka duubo horena waxay igu tiri su'aalo waa i weydiin kartaa golden opportunity bay ii tahay ama fursad aan wax ku ogaado maxaa yeelay shaqadaydu waa inaan su'aalo dadka weydiiyo waxna baaro si adigoo gurigaaga jooga macluumaadka dunida jooga aan kugu soo aruurin aan kugu adeegno maxaa yeelay waadna karaamaysay anaguna aan ku karaamayno ayaad mudan tahay let's go I'm Susan. I'm one of the archivists. Excellent. I saw so many different books from around the world. Is there a Quran also in here? Yes, we do have a copy of the Quran. There's one on display in the North Gallery, which is signed by the Emir of Afghanistan, Right. who became a member around about 1906. Right. right now waxay i siisay macluumaad kale oo dheeraad ah oo aanan weydiinin quraan ma yaalaa buugaag kaloo badan baa taalla waxaan dhihi karay maxaad quraan u keeni weydeen waa haynaa hadday dhahdo waa khaldan tahay so su-aashu way furan tahay meesha iyadu la aado inaan u raacana diyaar u ahaa in adeeray meeshaan buugaag fara badan baa taalle kii samaawiga ahaa oo la yidhi laa ya'tiihi albaatilu min bayni yadayhi walaa min khalfihi ma haysaa haabay tiri
dabadeedna waxay tiri waxaa keenay oo saxiixay amiir hore Afghanistan ahaa oo markaas asagu ahaa ninkii kitaabka halkan keenay isla mar ahaantaasna nagu soo biiray haddaan nahay Freemasonka. Let's go. Which proves how inclusive Freemasonry was and always has been. And still is. Yes, still is. Right. Now, already waxay sansagaraysay inaan Muslim ahay maadaama Qur'aan aan weydiinayo. Marka waxay rabtaa inay soo dhaweyso albaabadayga furto. Waxay tiri amiirkaas Muslimka ayaa xubin naga ahaan jiray kitaabka Qur'aankaana keenay South Gallery gu yaala. South Gallery ma intay kari because wuu xirnaa markaas saaliintuso. Marka waxay tiri waxay taasi ku tusaysaa in aan cid walba albaabadayna u furan yihiin ay nagu soo biiri karto. Waagaasna way furnayd, walina way furan tahay, haatana way furan tahay. Soo dhawow. So now shaxdii ayaan bedelay waxaan ku yiri anigu ma ku biiri karaa because waxaan rabaa inay hadasho macluumaad badan aan ka helo sida loogu biiro oo sidaan loogu biiri karin shuruudahoodu waxay yihiin marka dambana tawxiid baan isla tegnaanay iyadu ciyaartu waxay ku dhamaato idinka ka warrami doona. Let's go. So a black man from Africa such as myself can join? Definitely. What are the conditions? You just have to be a good. You see, maadaama ay igu tiri albaabadana waa furan yihiin oo nagu soo biiri kartaan oo Freemasonka waa ka mid noqon kartaan waxaan ku yiri nin madow anigoo kala ah oo Afrika ka yimid ma ku biiri karaa haabay tiri. So now su'aashaydii way ka jawaabtay waxaan rabnaa marka inaan ogaano shuruudaha loogu soo biiri karaa waxay yihiin because anagu meeshan waxaan u tagnay inaan xog ayaga ka soo ogaano. Ogow diintaada iyo caqiidadaada lama gorgorin karo. Christianity iyo Freemason iyo diimaha kale iyo waxa wax sheegta in الدين عند الله الإسلام لكن you want to find out إن المعلومات أغانا دورينا so waxaan ku iri waa maxay conditionadu markaan weydiiyey waa quslaya ama ilka cadaynaya and that ayada relax bay ka dhigaysaa already su'aalihii kalena maskaxdeeda they already been formed diyaar waxaan wahay inaan kuwa kala weydiiyo ku soco. Man, Right. over the age My mom will say I'm good man. I'm not sure about the wife. over the age of 21 and believe Tick that box. in a waxay tiri shuruudaha waxaa ka mid ah inaad qof wanaagsan tahay marka maadaama ay haweeney dhexe joogta ay tahay waxaa suurtagal inay hooyo tahay ama jeclaan lahayd inay hooyo noqoto waxaan ku yiri hooyaday waxay oran lahayd nin wanaagsan baa tahay Cabdixafiido so waa isla jaan qaadanayna iyadu midda kale waxay tiri inaad 21 sano ka weyn tahay aadar ilgba naguma harin bidaarna dilooti waa ku sidee warba ma hayso laakiin sheekada inay joogsato mar rabo kaftan yar baan u geliyo waxaan ku yiri rayaaba xaaskayga inay tiraahdo odaygu ma fiicna laakiin hooyaday waxay leedahay waa fiican yahay so waa kaftan yar oo macaan laakiin waxaan rabaa conversationku inuu socdo oo aniga ayada aan banaanka isku helno ku soco. supreme being. Supreme being. That's interesting. Are we talking about the shardiga u dambeeya waxay tiri waa inaad qof wanaagsan tahay good character waxay yiraahdaan dabeecad wanaagsan dadka la dhaqmi kara khiyaar ah inaad noqoto 21 sanana ka weynto oo mudakar tahay labo iyo inaad rumaysan tahay bay tiri supreme being oo ah waxaan oo dhan ka sarreeyo dunidan joogo oo dhan laakiin ayadan sii daayo waxay soo wadaa ka daran. one eye God? Are we talking about Jehovah? Are we talking about what are we talking about here? So markay tiri supreme being baa la caabudaa inaad rumaysan tahay weeye waxaan ku iri supreme being kan waa meeshan u socday weeye ma one eye God ka ma masiix dajaalka ma kan isha kaliya lehba waana meeshan u socday hadalkaygu u socday waxaanaad arkayseen oo dhan oo sheeko ah oo macaan ah oo sharaxaada oo sheeko ah oo aniga gabadhan dhex maraysa meeshan u socdo halkaas weeye waxaan aaminsantihiin ma masiix dajaalka baan ku iri so waa Jehovah waa mid ka mid ah ilaahiyada masiixiintu ay caabudaan mid ka mid ah waaye Yahweh buu ereygu ka yimid markii hore laakiin that's another topic for another day. Here we go. We're talking about whomever you believe to be. So it could be anything. Being. Yes. So it's left to the individuals. Yes. This is another crucial point way oo muhiim ah waxay tiri markaan ku iri supreme being kan ee wax abuuray ee dunidan u taliyay koonkan aad sheegaysid waa kuma markaan ku iri
waxay tiri lama xaqiijin lama caddaynin lama qiixinin qofka ayaa asagu go'aan ka qaadanaya so haddaad rabtid inaad lax caabudid aad tidhahdid laxdan waa kii koonka abuuratay haddaad doonaysid inaad faras caabudid haddaad rabtid inaad nin caabudid haddaad rabtid inaad islaan caabudid adiga hawl kuu taala weeye laakiin arrintaas ayada xoogaa yara inay sharaxday rabtaa igu soo dhowaato anna waxaan rabaa inaan soo dhowaado goordho baanu kala baxaynaa daawasho waa waxay tiraa So you can be a Muslim and Freemason, you can be a Jew and Freemason, you can be a non-believer and a Exactly. I got you. But you have to be a believer. you see way igu soo celisay because waxaan ku yiri xataa haddaadan waxba rumaysnayn ma lagu soo biiri karaa haddaa muslim tahay gartay oo kuwa muslimiina lagu jiray tiri haddaad yuhuud tahay gartay haddaad christian tahay haddaadan diin ba haysanin ka warmaan ku yiri oo tahay atheist kuwaan waxbaba aaminsanayn waxay tiri you have to be a believer marka anigu waxaan rabaa ujeedadayda inay ii sheegto ama wax ii tilmaanto waxaan ay leedahay waan aaminsanahay inaad aamintid weeye here we go What is the belief? That's what I'm trying to find out though. Come on, Susan. Spill it out. It's a belief in. You see? Now, bal ii caddee baan ku yidhi waxaanu su-aashaan baan dib ugu soo celiyey ii caddee say waxu jiraan erayadeeda waxaan macnaynaynaa qof kasta oo Soomaaliya afkeeda inuusan aqoon baa laga yaabaa marka xaq sharci baa naga saaran xaq bay u leeyihiin baan ka wadaa islaanta joogta boorama duleedkiisa ariga ku raacaysa inay fahanto barnaamijkan ayaan doonaynaa sidaa awgeed ayay qasab tahay qofka Soomaaliga inaan qadarino luqadeena aan ku sharaxno wixii markaas mugdiino ku jira ama luqadda xiriir ay kaga jirtay ay fahmaan laakiin intiina badan way fahmaysaan Allah idin karaamay hagaag waxaan ku yirina bal igu yar celiyo waxaan aad aaminsantihiin waa maxay you see waa qodqodaya laakiin kaftan iyo qosol baa ku jira goordhow ayaan ayadu isku soo baxaynaa meel banaana meel fagaara daawasho a supreme being. Right. It's not specified Right. whom that supreme being needs to be for members. I'm a Muslim, and I believe in a supreme being. Yes. I'll call him Allah. you see markaan waxaan go'aansaday in aysan iga shakinin oo ay ogaato qofkan ay horey quraan baan u weydiiyey laakiin waxaa laga yaabaa inaan isleedahay quraanka wuxuu ku weydiiyey maybe inuu ogaado doonayey laakiin now waxaan u sheegay abtirsinyahayga dhabta inaan ahay mid ilaahay rumaysan ilaah kalena qalbigiisa ku jira ilaahay mahada ka gaadho waalidiinteena iyo macallimiinteena soo barbaariyey now sheekada ayaa xiise yeelanaysa waaya The creator of the heavens and the earth, but I'm willing to learn. ilaahay weeye keliya kumaanan oran waxaan ku iri waa kan dunidan abuuray iyo wax kastoo cirkiga dhulka u dhexeeya kan abuuray baan anugu aaminsanahay so ayadu waxay rabtaa inay isoo jiidato anigu laakiin waxaan rabaa inaan u sheego ilaahay qofka uu yahay ilaahay dhabta ah ku yahay inaan u sheega ayaan doonayaa laakiin si yar oo sahlan oo qabow ayaan ugu sheegaynaa ciyaartu maskaxda ayaa laga ciyaaraya waaya And find out and discover and share the experience. okay waxaan ku iri anigoo muslim ah so albaabkaas waa xiran yahay tawxiid baa ku astaansan yahay lama soo geli karo laakiin waxaan rabaa inaan ogaado waxaad idinku rumaysan tihiin marka ujeedada su-aashaas ugu leeya waxay ahayd waxaan rabaa conversationku inuusan istaaginin because so far dhacay baa iigu taagan geeljirana waa ahaan jiray meesha u socdo oo ogahay kusii daa Also. Well, there have been Muslim members as Freemasons right from the very early days. Right. Such as? now waxay igu tiri muslimiin ayaa naga mid ah oo waa hore nagu soo biiray bilowgii Freemasonka nagu soo biiray so ayadu waxay rabtaa inay jiidato odayguna wuxuu rabaa meeshiisa inuu joogo waa sugan yahay ilaahay fadligiisa yaa ka mid ah ina marka haddaad u fiirsatay sidaan wax u su'aalayo mar kastoo ay wax tidhaahdaba I have su'aal to follow that keeps the conversation going and si sahlan u sheekaysanayna waaya Well, you can think about Umdat ul Umra, Right. who was a nobleman in India Right. who joined Freemasonry. Right. And then we have people like Muhammad, I can't remember who it was. Where is but he from? There's a couple of people in Right. India From who India. became Freemasons. Right. Yes. One of the things. Muhammad Jafar. Muhammad Jafar. all right sheekh hindiyo hore iyo maxamed jacfar ayaa ka mid ah ayay tiri
dadka nagu soo biiray oo qaybta ka ah freemason ka ah yani ujeedadu waxa weeye ina maxamuud jaamaco laynkaama soo raacay ujeedadu waa sidaas weeye soo dhawow minankaaga waa ay leedahay waaya From India. Who was Muslim, and Manokji Kasitji, Right. who was Parsi, Right. Zoroastrian. Okay. One of the things that I hear from now su'aal kale oo maskaxdayda ku jirtay ayaan rabaa inaan weydiiyo oo freemason ku saabsan now I'm done with caqiidada I want to move to another topic oo muhiimadiisa leh here we go again let's go people around the world, or you guys control the world from behind the scenes, you wear 2 watches, and stuff like that. And I've been so waxaan weydiiyey in adeer dadku waxay idinku eedaynayaan dunida in aad idinku daha dabadiisa ka maamushaan maxaa ka jira waxaa kaloo jira inaad 2 saacadood ku xirataan gacana midigta ku xirataan saacadna gacanta midigta saacadna gacanta bidixda ku xirataan waana waxyaalaha markaan waxaan baarayay aan soo ogaaday weeye let's see waxay tiraahdaa let's go walking around, I see no one wearing 2 watches. I think you need to talk to our communications. right now waxay go'aansatay inay soo gabagabayso sheekada markaan ku iri dunida idinkaa daaha dabadiisa ka maamula waxay tiri qaybta communicationka noo qaabilsan maa la hadashid hadda qaybtaas maxaa aniga iga galay adaan buku haystaa waa isugu keen baxaysaaniyo adiga marka ujeedada saas u leedahay waxay su'aalihii baa soo adkaanaya waana fara badan yihiin marka waxay istiri ninkan odayga ah he's into something now waxbuu baarayaa marka biyo intaysan ku qaadanin baa la iska moosa maybe inay already qaadeen maybe inaana weli aysan qaadanin siday doontaba haata idinku ra'yigiina fikirkiina la wadaaga laakiin la siiyay waxay tirahdeen inta Usually, because I can't comment on a lot of things that you're mentioning. Sure. But they would certainly be interested and would talk to you. I'll definitely talk to them. I don't know whether you. Right. Now, waxay igu tiri su'aalaha aad i weydiinaysid way igu adag yihiin ra'yina kama dhiiban karo sidaas awgeed qaybta kale ee markaas dhinaca warfaafinta iyo communicationka noo qaabilsan ayaga inaad weydiisid baan jeclaan lahaa now su'aal bay i weydiinaysaa ku saabsan emailkii sanad iyo bar ka hor aan soo diray marka 2 hadal oo isdaba marsan baan ku iri because emailka anaa soo diray laakiin mayaan ku iri markii hore and I don't know waxaa maya u iri because maskaxdayda 100 waxbaa ku jiray I have to be honest with you let's go You're the gentleman who contacted us by email. No, but someone emailed me. I sent email ages ago, but that was like a year and a half ago. And finally, I got the email back saying, I phoned first, then the email come through. So you can come and welcome on film. I said, my friend, when I'm in London, I'll make sure I'll show up. So far, it's been really pleasant walking around. waayahay now gabadhaas sheekadeedu waxay ku dhammaanaysaa inay ii dirto qaybta kale oo anigu markaas aanan u soconin laakiin aan jecelahay mustaqbalka inaan dib u tago maxaan ka bartay dadkan la yidhaahdo freemason waxaan soo aragnay say wax u caabudaan waxaan soo aragnay one eye godkii waxaan soo aragnay dad fara badan inay qayb ka yihiin waxaa maanta lii sheegaya dad Soomaaliya oo Mareykanka jooga inay xubno ka yihiin ma caddayn karo I hope inaysan xubin ka ahayn laakiin at the end of the day cid walba iyada rabbigeeda iyadoo qaawan hor istaagaysa waxaad kaga qurux badan tahayna ma jirto adigoo muslim ah dembi kastaba gal inaad ilaahay hor istaagtid laakiin qalbigaaga ilaah kale uusan ku hoynin daqiiqadna allah ka dhigay cawda u jar waxaan ka bartay anigu shakhsiyan inaan ogaado xaruntooda siday tahay calaamadaha yaala waxa ay caabudaan siday wax u caabudaan muuqaalkan kii ka horreeyay inaad daawatid ayaa wanaagsan si aad u fahantid sawir guudna uga qaadatid waxaana waxa ay yihiin waxaan mararka qaarkood maqlaa dhalinyaro yar oo Soomaaliya oo social media joogta ilmanaxti baa email ii soo diray you don't know waxa ka hadlaysid dadaadan garanaynin isku nolol ahayn isku ujeedo ahayn isku manhaj inaan ahayn isku page inaan ahayn weeye laakiin dadkii
qof walba wuxuu rabaa inuu caan noqdo dabadeedna wax loo xuduudii baa laga wada tilaabaya caannimo inaan noqdo in magacayga la sheego in la yidhaahdo caan baan ahay baa wax walba ku gadanaysa waxaan kusoo gabagabeynayaa arrin berigaan miidiyaha kusoo biiray dhacday oo aanan weligay cidna u sheeginin nin haatan aanan rabin magaciisa inaan sheego ayaa barnaamij anigoo xiriirinaya qof baa wuxuu sheegay magaca nebigu soo qaaday marka waxaan ihi sala allahu alay wasalam ninkaas wuxuu igu yiri niyow saxaafadda anaa kaaga soo horreeyey nin weyn baan ahay ha oranin sala allahu alay wasalam waxaad tidhaahdaa nabadgeliya naxariis dushiisa ahaato markaasaan ku yiri waa maxay different macnuhu waa isku midkiin sheeko dheer baan dhex martay sheekadaas inaan shood ka dhigaan jeclahay marka wuxuu yidhi haddii dadku ay ku arkaan ahludiin kaama haybeysanayaan kumana ixtiraamayaan su-aal baan adinku weydiinaya dadka qalbigooda yaa maamula allahu jala jalaaluhu yuqallibu quluub kayfa yashaa somaha intaas ay ugu filan guuliga gobonimo asalaamu calaykum waraxmatullah nabigu sala allahu alay